Nabi Huud alayhi salaam abtirsiintiisa waa la isku khilaafaa waxaana la sheegaa inuu ahaa Huud ibn Shaaliq ibn Arfaqsad ibn Saam ibn Nuux waxaanu ka soo jeedaa qabiilka Caad ibn Caws ibn Saam ibn Nuux nabadgelin xariis korkiisa ahaatee reer Caad waxay degnaayeen dhul u dhow bad lana dhaho Shaxthi dhankana ku haysa wabi la dhaho Maqiith waa deegaanka Axqaaf oo u dhaxaysa Cumaan iyo Xadramood ka Yaman reer Caad waxay ka mid yihiin dadkii ugu waaweynaa xagga dhererka iyo xoogaba waxay dhisan jireen guryo leh tiiro dhaadheer Nabi Huud alayhi salaam iyo qoomkiisa waa Carab sida uu rasuulkeena inoo tilmaamay nabadgelin xariis korkiisa ahaatee afar nabi ayaa Carab ah waa Nabi Huud Nabi Saalax Nabi Shucayb iyo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam Carabta waxaa loo qaybiyaa laba koox oo kala ah Carabta qadiimiga ahayd iyo Carabta ka soo jeeda Nabi Ismaaciil alayhi salaam Carabta qadiimiga ahayd waxaa ka mid ahaa Caad Tamuud Jurham Dasim Jadiis Amiin Madyan Imlaaq Qabiil Jaasim Banu Yaqdaan iyo qaar kale Carabta kalena waa Carabta ka soo jeeda Nabi Ismaaciil alayhi salaam waxaana ka guursaday qabiilka Jurham oo Carabta qadiimiga ka mid ah Nabi Huud waxaa la sheegaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku hadla Carabiga halka Nabi Ismaaciil alayhi salaam uu yahay qofkii ugu horeeyay ee ku hadla luqadda fasaaxada ah ee aan lahjada ahayn reer Caad waxay caabudi jireen sanamyo iyo ilaahyo ay sameysteen kadib qoomkii Nabi Nuux alayhi salaam iyo duufaantii qarqisay reer Caad waxay lahaayeen sanamyo lagu kala magacaabayay Saad Samuud iyo Hir markay gaaloobeen kadib waxay subhanahu wa ta'ala u soo diray nin walaalkooda oo lagu magacaabo Nabi Huud waana nabiga aynu doonayno caawa inaynu ka waranno Nabi Huud waxa uu amrayay sidii nabiyadii hore oo kaleba inay caabudaan Ilaahay kaligiisa kana tagaan sanamyadan iyo tamaasiisha ay gacmahooda ku sameysteen waxay ugu jawaabeen Nabi Huud Huudow waxaad tahay beenaale waxaana ku asiibay cadadii Ilaahayada oo ay kala jeedaan sanamyada Nabi Huud waxa uu ku yiri ma jirani cadana ima asiibin ee waan idin nasteexeenayaa ee i rumeeya oo qaata diintayada qoomkii Caad way kibreen oo isweyneeyeen waxayna isu moodeen inay yihiin dawlad aad u xoog badan oo dunida waqtigaas ka talinaysay waxayna ilaabeen aabihii abuuray subhanahu wa ta'ala oo ka xoog badan Nabi Huud waxa uu xusuusiyay nimcooyinkii uu Eebbe subhanahu wa ta'ala ku manaystay taasoo u sahashay inay dhistaan qasriyo iyo guryo waxayna u moodeen inay adduunyadan ku waarayaan kibirkooda waxa uu gaarsiiyay in cid kasta oo ka awood yar ay u awood sheegtaan qoomkii Caad waxay caadeysteen gaalnimada kuna dhaheen adoonkii Eebbe Huud alayhi salaam kuma rumaynayno kamana tageyno sanamyada Nabi Huud iyo intii rumaysay waxay iclaamiyeen inay bariga yihiin sanamyadan iyo waxay caabudayaan reer Caad waxay ka careysiyeen Eebbe subhanahu wa ta'ala waxayna dhaheen hadad cadaab inoo hayso soo daa kadib markii Nabi Huud alayhi salaam uu ka qoostay waxa uu bariyay Eebbe subhanahu wa ta'ala waxa uu dhahay Ilaahu ii gargaar waxaana Eebbe subhanahu wa ta'ala ugu jawaabay dhawaan ay ka shalay doonaan qoomkii Caad waanadii waxba kumay qaadanin manaysan rumaynin maalintii qiyaamaha bal waxay badheen waxa kala fog adduunyada iyo in la isa soo saaro muddo kadib waxa ku dhacday cadadii Eebbe subhanahu wa ta'ala oo waxa indhaha loo saaray abaar kulul oo roob la'aan ah waxay soconaysay muddo 3 sanadooda abaartii markii heen kari waayeen ayay bariyaan sanamyadoodii ayagoo weydiisanayeen roob iyo biyo intaas kadib waxay maqleen dhawaaq iyo cod xagga sare ka imaanayay daruurahaas oo midabyadooda kala duwan yihiin waxayna ahaayeen mid cadaana mid casaana iyo mid madow waxay markiiba doorteen daruurtii madoobeed iyagoo isla haaway biyo badan tahay isla markiiba gabar ayaa dareentay inaanay ahayn daruur caadi ah oo ay tahay halaagoodii markii ay arkeen in roobkan uu wato dabaylo iyo dhaxan xoogani ayaa ay ku yaaceen guryahooda Eebbe subhanahu wa ta'ala waxa uu adeegsaday mid kamid ah ciidamadiisii oo ah dabayl waliba dabayl sida duufaan iyo dhaxan waxayna afgambisay reer Caad oo idil guryahoodii iyo qasriyadoodii way tirtirmeen